نبينا أشرف الأنام الله رأيت المصدى ففي المنام بروضتنا أشرف المقام السيد المربي شيخ عبد الرحيم بن الشيخ حسن ayaa dhowaan booqasho iyo salaan ku gaaray hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho Sheekh Axmed Muniir oo ah musannif qoray qaybo ka mid ah kutubada culumta shariicada islaamka. Sheekh Axmed Muniir sidoo kale waxa uu sharaxay qaybo ka mid ah kutubada ay qoreen culumada diinka Soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn. Culumada Soomaaliyeed ee kutubtooda uu sharaxay waxaa ka mid ah Sheekh Suufi oo ah caalimul banaadir. Sidoo kale sayidka booqashadiisa waxaa ku helinayay mashaayikh ay ka mid yihiin Shariif Maxamed Cumar Baaskuuti Baacalawi, Macallim Axmed Bita, Sheekh Cabdiraxmaan Geelle. رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد عاد وصفك ليس يحصى بالنظم لا بالنسخ يا محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد أول شفعاء الطران وأفضل خالق خالقنا محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد أكمل الأوصاف خلقا وخلقا ربعة القديم محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى sidoo kale waxa ay booqasho ku tageen masjidkii uu culumta ku akhrin jiray Allah ka raadi noqde Sheekh Suufi. ugu dambeyn as-Sayyid Sheekh Cabdiraxiim ayaa ka warbixiyay ujeedka booqashadooda iyo taariikhda masjidka. rahmatan lil aalamiin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. maanta waxaan ku suganahay masjidka loo yaqaano awta eeday waagi hore la dhihi jiray haddana loo yaqaano masjid Sheekh Abba. masjidkaas oo ah masjidkii oo duruusta uu ku akhrin jiray sheekhi weynaa ee caalimka ahaa caarifka ahaa Sheekh Cabdiraxmaan ibn Sheekh Cabdullah Shaashiyi Suufi, Sheekh عالم البنادر وشيخ البلد. meeshuu duruusta culumta ku akhrin jiray waaye. meeshaan waa meesha madrasadii ay ka soo baxeen culimadii waaweyneed sida maartay Sheekh Qaasim al-Baraawi, Sheekh Maxamed Faqiih Yuusuf, Sheekh Cabdullah al-Qutubi iyo mashaayikhda la midka ah meeshii ka takharujeen waaye oo sheekha uu duruusta culumta ku akhrin jiray. maxraabkii Sheekh Suufi uu istaagi jiray waaye salaada uu ka galin jiray. alxamdulilah oo dadka uu salaada ku tujin jiray. marka alxamdulilah maanta waxaan soo ziyaaranay sheekheena weyn khaliifatul aslaaf الشيخ أحمد منير طول الله عمره آمين. إلهي عمرك يسهر شيخ أحمد منير أيان سو زيارني وأنا كرامي وأنا مرتقاضي الحمد لله وأهدى لنا مؤلفاته مؤلفات كيس أيونو هدية كتبتي وألفي أيونو هدية إلهي خير وإنها كجزيه ومضنا الله كو أنفعه أمثال شكرنا وحلنا الله بديو آمين. الحمد لله زيارة وفرنتي waxay aad u qiimo badan ziyaartaas oo inuu heliyeen الشيخ العالم الشيخ عبد الرحمن ابن خليفة محمد عثمان المشهور بشيخ عبد الرحمن قله والدكتور الشيخ الشريف محمد عمر الباسكوت الباعلوي يا مارتي زيارة نقوه لي sidoo kale waxaan ugu heliyay macallimkayga macallim Axmed Deerow oo macallim Axmed Bitaal loo yaqaano macallimkeena Quraanka. الحمد لله waxaan ugu soo dhaweeyay oo xadarada ugu soo dhaweeyay sheekheena العالم الشاب الجليل الشيخ قاسم ابن الشيخ أحمد منير isaga ayaan tarxiibiyay oo noo geeyay maarta sheekheena Sheekh Axmed Munir جزاه الله خيرا ilaahay ha ka dhiga maarta midkii dhaxlo
وارثا لأبيه وأجداده إن شاء الله تعالى. أمثال سنة الله بديو لفتركيس عالم وين مؤلفة وايا مؤلفات كيس وحكم منه النوه هدي جزاه الله خيرا وهو القائم مقام الوالد جزاه الله أحسن الجزاء وطول الله عمره في عفو وعافية إن شاء الله تعالى. شريفك يا مركا وحاول كلمتنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله جل وعلا ayaa mahad iska leh naga dhigay dad muslimiin ah haddana naga dhigay ummadii nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ahlulaahiga tilmaamahooda ayaa waxaa ka mid ah at-tazaawur inay isbooqdaan ay isziyaartaan maxaa yeelay isbooqashadaas waxay keenaysaa isjecel iyo ghufraanu dhunuub ayaa meeshii ka dhalanayso. Xadiidkii waad ogtihiin ninkii oo ma arkaysa ilaahay dartiisa u safray oo tuulo kale aaday oo malak suuratu bin aadam isagoo wata uu ka hor yimid uu ku yiri xagga u socotaa walaalkeygii oo ilaahay dartiisa u jeclaaday ayaan u socdaa buu yiri. Ma waxaad ugu socotaa awaal hadda ka hor uu ku geystay inaad u gudid ma ugu socotaa may buu yiri ilaahay dartiisaan ugu socdaa. Markaasuu ku yiri anigu malagaan ahay ilaahay baa ii ka soo diray وشاغا لي دهي هبل إن إلهي أوجي عليه سبحانه وتعالى. مركا محبة الله يا كدلانيسو غفران ذنوبا كدلانيسو لا سيما ددك أهل الله علماء أولياء إن لبا أخذنا وحاويان مبقو سيجر طبو الليه بوقشاراس قيمها بدن ما تنسو وافجيي أيانكم مهدينينا قارها ويلبو قفكنا ترحيبيي شيخ قاسم شيخ أحمد منير وما أركيسا أريتاس واسطة نوغاها أسانا وحالينا هي جزاك الله خيرا. مركا ما تشرف تاسي قيمها أيان إلهي وقوم اهدنا سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله. لقاء الإخوان سبب الغفران نعمة المنان الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله.